السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to our channel. This is Dave Ahmed. maanta mawduucan cashirkan waxaa if statement. If statement waxaa building function. If statement waxaa block that controls execution flow. يعني program kasta waxaa bilaabo kor ilaa hoos u bilaaba marka inaa statementkan ay controlin ama executionkan inaa wax control ku sameyn control oo waxa ka wada tusaale passwordka qortay adii oo passwordka qaab soo bax database ama waxa passwordka oo sax ah waxa soo baxay false hadoo error wax soo baxay ama passwordka ceel hadoo passwordka sax yahay Google Gmail ka wixii ahaat ama Facebook yani ku marsiina oo login oo laha markaas waxaa la isticmaalaa if statement. If statement waxaa ku bilaabaa if ama area qorno password equal to start my name waxaa passwordkayga laakiin waxaa maya waxaa dahani passwordka waxaa yani passwordkan wuxuu ku dhex jiraa systemka ku dhex jiraa marka waxa kan waqtiga user dash password waxaa isticmaalaya input iyo print camal waaye print waxa waa output inputna waxa waa keyboard wixii qoray oo qaadana waxaan input marka if statementkan la qorina if password waxa la egyahay equal to cashirka oo dambeeya qaadana oo daraad user password the password waxa la ogyahay am equal to user password yani passwordkan waa saxsan yahay login adayna macnaha print login haduu khaldan yahay ama wax qalad hadii qornay waxaa isticmaalina else haduu sax ahayn waxaa dhihina waxaa dhahayna please check your password. Okay run adayna waxaa qoraa tusaale waa khaldan wax khaldan qora waxaa dhahay 1 2 3 waa passwordka laakiin khalad waa waxaa soo baxay please check your password yani waa khalad waa hadii oo saxno markaad ku celin oo qoro my name maxaa khaldan check your password my sax password qori maha passwordka okay san sax control enter markaan ku celina غلط ولا فكنا مكيو كود لقرح marka waa kan waa sax login oo soo qoray password leen ku xiran waxaa taani x iyo number iyo waxyaalo badan oo isticmaalaya yani program language if statement iyo loop maka arkays
program kasta oo muhiim waa condition yani haduu shay sax yahay ama wax sameeyo markiisu qalad yahay inuu wax kala sameeyo AI na saas inay tahay umaleyn waa nested if waa gaari doonaa hadda tusaale hadaan dhigteen iyo waa equal to hadaan if waxaadani y oo wax ka yaryahay x waxaadani print y is smaller than x else haduu kala socdo indentationka oo wax shay muhiim ah hilmaamay markii python ama functional oo loop iyo functions loop def waxaa la isticmaala indentation yani indentation waa markii oo if tahay space u dhexeeya waa afar space kan afar space waa in waxaa la indentation kan waxaa si oo programkiisa u khaldin ama isku dhex qasin midaan lacala intaa wax kusoo daray yani qalad waa hadii inta wax qoro laakiin iyo waxaa dhihi karnaa wixii meeshan ku qoran waxaa leh statement leh waxaan dhan haduu true yahay meeshan waa cadeyna intaan qoran haduu true yahay waxaa block oo waxaa leh ama booskiisa ama true markuu sax yahay inaa booskiisa else-kana sidoo kale indentation python level indentationka laakiin programming language oo kale waxaa isticmaalaan inta waxay isticmaalaan curly bracket si javascript iyo curly bracket aa isticmaala enter iyo box ku jiro ama curly bracket ku dhex jiro waxaa else aa leh laakiin python waxaa isticmaalayna spacekan iyo semicolonka okay semicolonka waxaa cadeyna yani hadaan tusaale semicolonka markii oo qor IDE ama code editorka automatic wuu fahma inuu waxa yahay if statement ama else inuu qor rabno automatic space uu siiye hadii oo ku bixiyo waa kan yani qoraal caadi umaleyna laakiin hadii semicolon ku daro enter okay aan wadno example print haduu false tabaha yani waxaa cadeyn ina x smaller than y okay inta waxaa dhahani y is smaller than x marka y is smaller than x waa sax x kan tama y waa 2 marka kan soo saxa kana soo saara laakiin kan feebtan else waa ka booda kan aadana waa kan y smaller than x hadaan kala bedelaa tusaale waxa waaye waa 20 waa false marka enter waxaa soo baxa x is smaller than okay waxa tusaale kale example ka waa macruuf
استعمالنا nested if oo يعني متصحين أو سوالنا example waxaa dhahay example arday darajadkiis ama ABC oo loo dhahay ama oo baasi si uu cadeey karo waxaa dhigaynaa student hadda waa kala bedelaynaa okay waxaa dhahay if student oo waxaa la ogyahay ama waxuu ka yaryahay ama waxaa la ogyahay 30 يعني 30 u hooseeya يعني ardaygaas waa dhani waa dhacay waxaa fail aa dhacay ama xarf aan kusoo gali karnaa hadaan f oo keen ardaygaas hadda waxaa isticmaalaynaa nested if statement waxaa dhahaynaa elif oo waxaa laga soo galaya else if oo laga soo galaya laakiin elif aa dhahay waxaa ku dari kara statement ku dari kara hadda adoo ardayga waxaa tusaale waxaa dhahay inta waxaa dhahay student haduu wax ka yaryahay soddon haduu ka yaryahay ardaygaas waa dhacay hadda waxaa dhihinaa haduu wax ka weyn yahay ama waxa ka weyn yahay 30 iyo waxaa isticmaalaynaa and cashirka hore ayaa kasoo qaadnay and student oo wax ka yaryahay tusaale 50 waxa ka yari ama la ogyahay 30 يعني intervalka waa soo qaadateen oo malayn intervalka يعني ما بين 30 iyo 50 يعني 35 ama 40 haduu keen ardaygaas waxaa dhahay wuxuu keen tusaale waxaa dhihaynaa D oo keen okay kuwa kale kusii daraynaa waa sii wadi karnaa nested if aa dhahay يعني isku dhex jiraan oo waa isku wadi karnaa ilaa 10 iyo 50 waa iska geyn karnaa student iyo hadda wuxuu ku weyn yahay hadda 50 waa ku weyn yahay hadda and student hadda wuxuu ku weyn yahay oo wax ka yar yahay waxaa dhahay 60 may 80 aa dhahay ardaygaas waxaa dhahay sax ma aha waa isku leeyahay example lewa waxaa dhihinaa waxuu keenay b qiyaas sax ma aha laakiin b aa iska dhahay kuwa kale 90 iyo 100 student haduu ka yaryahay ma haduu ka weyn yahay 80 waa ku weyn yahay and student waxaa la ogyahay 100 ma been 90 iyo 100 ilaa 100 okay waxaa dhihinaa
print else لازم بعمل أقدر هنا else على قيمة أو درجة أو غلط آخر أما واحد array آخر غلطا وهذه هنا errors دي هنا أوكي waxaa muhiim ah maamul inputka waxaa u bedeleyna integer inputka waxaa soo celinaa string oo soo celinaa laakiin unka waxaa la qiimeeyaa numbers marka inaan number ka dhigno functionkan waxaa la casting int yacni qoraalka oo waxaa ka dhigaa qoraalka caadi waxaa ka dhigaa number hadduu number yahay waxaa ka dhigaa qoraal string aad jiro hadduu number yahay ina waxaa u bedelaa qoraal oo bedelaa waxaa jiro float oo waxaa u bedelay decimal oo ku dara intaas waa badan yihiin waa gaari doonaa insha allah hadda kana isku daynaa inuu sax yahay bismillah haye tusaal ardayga wuxuu keenay 20 hadduu 20 keen waxaa rabnaa inuu wax soo saaro f okay waa sax f oo soo saar markaa ku celinayo tusaale waxaa rabnaa sabti b konton iyo 8 wixii dhexeeyo waxaa dhahni 60 oo keen waxaana soo saar b okay inta dambe click waa sax koodka aadan insha allah I hope cashir inaad ka fahamteen hadii waxaa fahmi jiro cilin jira leave a comment hadii cashirkani cajabihi like saar hadii oo fahmayseen ama khalad jiraan dislike iyo wixii qalad comment. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.